Hello, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulanti wanaagsan. So inshallah maanta waxaynu qaadanaynaa casharka ugu horeeyo. Casharkeeni ugu hore waxa weeye koorsadeeni cusub. Wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano Microsoft Windows ayuu ku saabsan yahay. Okay. Windows waxa weeye haddaynu Windows aynu sharaxno. So waxa weeye waxa loo yaqaano waa program مثلا وحوي وسيستم سوكعني مركا كمبيوتركا إنه شقيه وح صورة جلينية أو صورة جل كديجة إنه كمبيوتركا شقيه توح الله يقانو أو ويندوز أنا وحوي آت بوفر بلين وحوي مركز تأبريد بلو سمية so هذه وحوي قف ويسوي كحرنت هاي متكوش عليه إنه أنت بدن استعمال هذا ربط وحوي مايكروسوفت ويندوز زون استعمال 8 استعمال 10 استعمال 16 استعمال سو وح هذه قاعد جعشة ويندوز هذه قاعد جعشة مركزته هذه هو حرنت إن شاء الله أنا هذا ويندوز عن استعماليه ومايكروسوفت أوفيس 7 أو بروفيشنال ويندوز مركزي بروفيشنال أو مركزي مهم أوكي عشر كيني مركا أينو سيجو ذكرنا مركا أوكي today إحنا قادرين إن شاء الله قيبت وهريسو مركزي إنه كشرح دون إن شاء الله حلو يقانو مايكروسوفت ويندوز أوكي مركو هريسو قدب هري وحوي وات ستارت ويندوز هري وحوي هرت مركو هريسو ويندوز إنا سوق عيسو أو مركز أسوشيتو سدي أدم ويندوز سوق عنيسا that means ويندوز إنا سوق عيسو وحي كدي أنت وحوي كمبيوتر كإنه سوشيتو كمبيوتر كدي without ويندوز وياهي وحوي wax shaqo oo markaasi computer uu qaban karo malaha computerku waxa weey waa qolof misana waa hardware okay isku xirxiran okay waxa markaa ka shaqaysiinay computerkan inuu soo kaco oo suurtagelin in computerkan la isticmaalana waxa weey waxa suurtagelinaya waa Windows so hadii Windows aysan ku jirin wuxuu la mid yahay dhagax meel yaalo buu la mid yahay computerku okay sidee ay markaa aan ku soo kicinayna waxa loo yaqaano Windows markaa soo kicinayso automatically inta badan computerka badan wuxuu leeyahay laga soo kiciyo Windows so badanka wuxuu u dhaxeeyaa inta badan inta u dhaxeeyso shaashada computerka iyo keyboardka madaxiisa sare ayaad ka helaysaa waxa loo yaqaano power button badankaasi oo computerka laga soo shido unba taabanaysaa oo gacantaad ku ruuxaysaa one finger baad ku ruuxaysaa ka bacdina automatically computerku uu soo shidmaya okay halkaas aad ka fiirinaysaa okay badanka loo yaqaano power button okay ayna ka socono qodobka waxaynu gudbaynaa qodobka labaad oo waa to hide standard icons marka waxa laga doonay inaad qariso standard icons maxay yihiin standard icons waa 5 icon waa 5 icons okay shantan icon waa iconal markaasi original oo computer marka bacdiis uu yahay arrow ka soo qaato just shaashadiisa aad ku arki karto marka Windows la soo kiciyo waxaan doonaynaa marka shanta inaynu islaarno kadibna waxa weeye inaan qarino baynu isku dayna insha Allah okay markuu horeyso waxyaabahan hadda shaashada dul saaran waa icons misana items waxa ku jira waxa loo yaqaan standard icons oo shan aan ku tusiyo midku horeeyo waa midkan waxa loo yaqaan user fail ba loo yaqaanaa كان يسوون هو كمبيوتر كان يسوون هو نتورك كان يسوون هو ريسايكل بين كان يسوون هو كنترول بانل شنتان ايكون اي waxa loo yaqaan standard icons maadaama yihiin iconal Windows uu wato oo computer markii soo kicina waxa weey shaashadiisa automatic aad ku arkayso halahan kale waxa weey inta kale iconation kale soo haray waxa weey marka laga reebo ayaga waa files ama folders iyo waxa weey waxyaabo markaasi document sidoo kale waxyaabo apps oo markaasi Google Chrome laga soo tagay okay waxaan isku daynaa marka inaan qarino waxa weeye shantan icon aynu isku daynaa insha Allah inaan si fudud markaasi aan ku qarino markuu horeyso waxa tagaysa meel banaan oo shaashad ka mid ah ay flat aad geynaysaa markaad geyso qaybta muuska ee right qaybta muuska ee dhinaca right-ga okay ay waxaad ku leedahay right click okay muuska tag waxa leedahay right click ka baad meesha marka tagto right click marka dhahdo right click marka saxdo kadib waxaad imaanaysaa boxka marka ku soo waxaad ka dooranaysaa meesha qoran tahay personalize kadib kaliya ku dheh
kila markaad ku dhahdo boxka ku soo baxo boxka hadii aad rabto waxa way minimize dhigi kartaa oo hoos ba geyn kartaa waad qarin kartaa sidoo kale maximize oo weyneyn kartaa hadii aad maximize aan yiraahdo sida ayuu noqonayaa hadii minimize okay maximize aan ku celin halka mesela qaybta sare madaxaanta oo double kill aan ku yiraahdana sidii soo ayuu ku soo laabanaya okay hadda xubana ma galin midka haduu sidaan kugu soo baxo boxka waxaad tagaysaa waxaad ka dooranaysaa dhinaca geeska meesha ku qoran tahay change list of icons kadibna halka markaad joogto waxa ku muuqanaya automatically okay the 5 standard icons shantii standard icons aha ee shan aynu ka soo hadalnay waa markaas automatically indhaha warkiisa waa shanta waxa uu horay computer easily spell network recycle pin contrabanner waa shanta sawiradaana saaran soo okay so marka waxaan doonaynaa muhiimadda inay tahay waxaan u socno waxay ahayd so inaynu markaan qarin tagta ayaan ka wada qaadaynaa dhamaantoodii waa dul tagaysaa dhamaantood waxa ka dhigaysaa uncheck sida markaasi uncheck aad u dhigto oo waxa way tagta yirista aad ka qaado waxaad leedahay kadibna shaqo weli ma aadan dhimin waxaad imaanaysaa okay isna apply kadibna okay iska xir boxka meesha extra ku qoran tahay extra waxa way waa close halka taabo okay hadda sida aynu ku qoranay markaasi wax loo yaqaano standard iconation shantaha sidaas ayaan ku qoranay waa ku meesha ma kama muuqdaan yaqi waa de waxa way خلاص way bixin kurigoodii bay aadeen so waxaan u gudbaynaa labaad baynu u gudbaynaa isaguna sorry waxaan u gudbaynaa qodobka saddexaad waxa weeye waa to show standard iconation aynu qarinay ya aynu doonaynaa dib aynu u soo celin waxaan dhahnay standard iconation hadda aynu qarinay waxaan doonaynaa inaan dib u soo celin sidee ayaan ugu soo celin karnaa waxaynu raacinaa wadada aynu raaci jirnay marka aynu doonayno inaan qarno ayo so meel banaan aynu tagaynaa waxaan leenahay right click kadib right click markaan dhahno so personalize baan ka dooranaynaa boxka waxaan ka dooranaynaa isagana change list of icons baan ka dooranay kadib waxaan sameynaynaa automatically check all of them dhamaantoodii tick baan saaraynaa dhamaantoodii sida aynu markaasi tick aynu u wada saaraynaa oo markaas aan markaasi waxa weeye aynu u soo celin karnaa marka tick aynu saarno oo check all of them dhamaantoodii tigta oo saxda marka aan wada saarno shantoodii ba waxaynu leenahay okay hadaa rabto apply de okay kadib mesela okay de haddaynu arkaynaa marka inay shaasi saaran yihiin iyo waynu is arkaynaa insha Allah let's go so waa ko mid ku horeeyo 2 3 4 5 sidaas adiguna aad ku soo celin kartaa haddii markaasi standard iconation ay ka qarsoon yihiin okay waxaan u gudbaynaa insha Allah qodobka xiga aynu gudbaynaa waana qodobkeeni waxaan u maleeynaa shanaad inuu yahay sax waa qodobka shanaad waxaan noo qoran waa to change in markaan bedelno the background sorry qodobka afraad aan ka boodnay okay dhima laha waan ku soo laabanaynaa qodobka afraad wuxuu leeyahay to change the appearance of the standard icons waa to change in bedelno the appearance of standard icons appearance-ga muuqaalka oo sawirada yararka saaran standard iconation mid kasta sawirada saaran si loo aqoonsado sax mid kasta wuxuu qabto oo caan ku yahay sawir markaasi oo mathalat wax ba saaran saas darteed appearance-ga muuqaalka baynu ka bedeleynaa sawirada yaryar oo dul saaran iconation aynu bedeleynaa marka sida aynu ku bedeleynaa okay salahan midka hadda waxa weeye network oo kale waxa noo saaran sawirkaas aynu ka soo bedeleynaa oo sawir kale oo markaasi network oo markaasi mathalat aynu markaasi aynu saarayna okay sidee ay markaasi standard iconation muuqaalada meeshan sawirada markaasi dul saaran aynu ugu bedeli karnaa waxaanu tagaynaa meel banaan baynu tagaynaa insha Allah waxaan leenahay right click markaynu dhaxno waxaan ka sii dooranaynaa waxa loo yaqaan personalize markaan ka doorano waxaan imaanaynaa change list of icon halka markaan joogno muhiimadeena ma aha inaan qarino muhiimadeena ma aha inaan soo celino so waxa way muhiimadeena aan u socno waxa way inaynu appearance-ga aan ka bedelo had midkan oo kale ku qoran tahay computer mise midkay ku qoran tahay 1 2 3 minutes waa user spell hadii magaca laga bedelay ima laha okay hadsaarahan network midkan doonayna inaan ka bedelo intaan waa ka bedeli kartaa laakiin waxaan doonaynaa midkan network ay ku qoran tahay inaynu sawirka inaan ka bedelo so aan shayga doonaysa inaad sawirka ka bedesho aad u dooranaysa oo kaliya aad ku dhigay marka sida aad u doorato sidan markaasi uu kugu calaamadeysan yahay aad wax dhimanaysa meesha ku qoran tahay qaybta u hooseysa oo ah change icon okay sawirka jeceshaad baa saaranaysa
saaran sabrada aad u badan yihiin halkan dhibicda geeska isha tagaysa hadii kali aan ku dhawaaq waa sabrada aad u badan yihiin okay aad u badan yihiin soo ma jeedido okay hadaa rabtaan waxa way automatically xariiqda yiriista ay dulgeynaysa markaas sida u dulgeyso lafta qabo saan midan u jijiid markaa sida u jijiid okay midan had waxa way inaan sawir koraan iska bedelno sawir kale aynu saarno insha Allah okay midkan ayaan saarnayna had sala midka ayaan saarnayna midina sawir koraan ka bedelmo okay midkana mid sawirka adiga doonayso markaa ayaa dooranaysa halka markaa joogto sawirka adiga doonayso ayaa dooranaysa سؤالنا هذا متكن أيان دورتي كتير معن ليه أوكي باركيسا صور كينوز بدريسا كبعدنا أوكي بان ليه كتير بوكس كايجا صور وعن أركينا نتوقع إن صور كي أنا كبدلني أو صور أسب عني مسارني أوكي أو جيت صح هذا نسكت دينا إنا كبدلنا إنا صور كي صور أنا كسر علينا وحنا تجينا من بنا رايت كيلو بان لين هاي أوكي رايت كيلو مكان لنا personalize كتير محنا تجينا change style icons كتيرنا نتوقع أنا كتير دورنينا change icon كسي دورنينا waxaan raadinaynaa sawirkii awal inoo saarnaa aynu raadinaynaa sawirkii awal inoo saarnaa waa sawirka baa inoo saarnaa sa kadibna okay baan leenahay waan dooranaynaa kadibna waxaan leenahay okay kadibna okay soo iska close gari halka okay network waxaan ku soo celinay sawirka awal saarnaa marka sidaan iconesha midka aad doonayso sida ayaa sawirka aad ugu bedeli kartaa oo markaas aad ku hagaajin kartaa insha Allah waynu ka gudbaynaa qodobkan waxaanu gudbaynaa qodobka ku xigaynu gudbaynaa waa qodob shanaad waxa weeye waa to change the background of the desktop background means waxa la yiraahdaa sawirka markaasi sawirkan arkaysid oo shaashada computerka saaran ayaa waxa loo yaqaanaa background sababtoo iconation ayuu ka dambeeyaa oo gidaashoodu buu jiraa oo dhinaca gidaal buu ka xiga sidaas darteed waxaan doonaynaa computerkan sawirka inoo saaran oo background desktop-ka soo inaynu bedelno sidee ay markaas inuu ku bedeli karnaa oo shaqadaas aan ku qabanaynaa waxaan u maleynayaa inay tani tahay shaqo ugu fudud oo qof kasta insha Allah uu ku guuleysan karo computerka in hal sawir uu ku saarnaado waa laga sii muhiimsan yahay oo markasta waxa fiican update inaas ka dhigto okay waxaanu tagaynaa just the mail banaan baynu tagaynaa right click baynu leenahay right click markaynu dhaxno kadib waxaan imaanaynaa meesha qoran tahay personalize markaad aad timido aad halka aad imaado waxa weeye halkan ay ku qoran tahay maximize tagaysa waa weyneynaysa okay dhamaan sawiradan themesyadan oo dhan midka aan jecelnahay baynu ka dooran karnaa tusaale ahaan hadda midkan oo loo yaqaano Windows 7 ka lagu aqoonsado sawirahan ayaa shaashada inoo saaran sax hadaan qaldanayn so waxaan doonaynaa aan iska bedelno waxaan doonaynaa in markaas aan iska bedelno haddaan saari afan so waxaan doonaynaa marka sawiradan noocyadan inaan gruubyada inaan doorto sawirada haddaan ku dhufto waxa weeye waa qayb way marka haddii sawirada halkan ku jiro waxay noqon karaan ilaa 5 ilaa 6 ilaa 7 ilaa 4 noqon karaan hadda markaan ku dhufto waxa automatically shaashada waxa weeye saarmaya waxa weeye mid ugu horeeyo haddaan ku dhufto midka sawirada qaybtan okay aan iska xiro sawirkan hadda shaashadiisa waa iska bedeli kartaa haddaadan ka helin oo meel banaan tag right kelida okay meesha hor ku soo laabo personalize kadibna hadda okay group kale iska dooro laakiin hadda groupkan kale dooranayo iyaguna okay sawirkan ay saar sidaas ayaad markaa sawirka shaashadaada aad u bedeli kartaa okay haddii rabtaan waxa weeye sawir adiga aad leedahay shakhsiyan waa saaran kartaa laakiin hadda qodobka kama hadlayno insha Allah okay waxaan doonaynaa inaan u gudubno qodobka kale waxa weeye waa qodobka lixaad oo maanta insha Allah casharkeenu ugu dambeeyo waa to show the next background of the desktop waxaa loola jeedaa waxa weeye wax kale ma aha waxaa loola jeedaa sawiradan hadda aynu soo dooranaynay tusaale ahaan sawirada hadda aynu soo dooranaynay sax groupkan hadda ay dooran sax oo shaashada ay saaran sawirka ugu horeeyo maadaama sawiradan ay badan yihiin oo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 ay yihiin marka waxaan doonayaa marka sawirka ugu horeeyo de hadda waa midka waxaan doonayaa sawirkan sawirka ku xiga inaan ogaado
sawirka saddexaad labaadna sawirka ku sii xigay saddexaad inaan ogaaday kan afraad inaan ogaan karo kan shanaad inaan ogaan karo kan ugu dambeeya inaan ogaan karo ilaa uu kaaga soo laabanayo midkii koowaad marka maadaama sawirada hadda midka ugu horeeyo group ay ahaayeen waxaan doonayaa sawirka shaashadii saaran sawirkiisii kale aan ku xigay in markaasi aan ogaado aan arko inuu kan ka sii fiican yahay kale hadduu ka sii fiican yahay shaashada ku saarnaana haddii uu ka sii xun yahayna waxa weeye oo waxa way soo jiidashahan uu ka xun yahay waxa iska bedeli karta waxa leedahay meel barnaamij tagaysa waxa leedahay right click marka dhahdana waxa leedahay next meesha qoran tahay desktop background sawirkan uu ku xigo sax kadib waa dhigi kartaa sawirkan haddii ku anficin waxa dhigi kartaa sidoo kale right click inta dhahdo ay waxa dhigi kartaa waxa loo yaqaano next desktop background sidoo kale waxa dhigi kartaa inta right click dhahdo ay waxa dhigi kartaa waxa loo yaqaano next desktop background ilaa uu sawirka kood uu ka soo muuqanayo okay sidoo kale right click dheh next desktop background okay sidoo kale weli sawirka kood ma soo bixin okay next desktop background wasi wadi kartaa ilaa inta yihiinba so insha Allah cashirkeeni maanta halkaas ayuu markaasi inoogu egahay insha Allah koorsadana waa koorso markaasi pillow ah aan uu targalnay markaasi inay ka faa'iideystaan ardayda jecel inay bartaan okay maadada computerka gaar ahaan qaybaha aasaasiga ee inta badan si daily loo isticmaalo loo yaqaan computer applications okay haddii aad jeceshahay inaad ka mid noqoto waxa weeye ardayda markaasi wax ka barta macadka okay fadlan waxaan markaasi aan ku wargelinaynaa insha Allah in markaasi aynu qaadanayno fasal cusub okay ku soo macadku waa macadka okay